Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Dowladda Mareykanka ayaa haadaan dheer ka tuurtay rajadii 30 sano ku dhisneed ee gooni-sutaagga Somaliland. Haddaba waxaan halkan kugula wadaagayaa warbixin dhinacyo badan taabanaysa waxa laga baran karo tallaabada ay qaaday dowladda Mareykanka, waxa la gudboon maamul goboleedyada ka jira dalka, gaar ahaan 3 maamul oo aan rabno in aan halkan ku falanqeyno adiga ka ahaan qaybta hoose igu reeb aragtidaada iyo sida aad u aragto warkan ka soo baxay dowladda Mareykanka oo ay isaga diiday in ay qayb ka tahay in Soomaaliya la kala gooyo ama la qaybiyo. Haddaba warbixinta inta aan gudagelin waxaan ka codsanayaa in aad muuqaalkeena sii gudbiso, like gareyso, share gareyso oo aad la sii wadaagto asxaabtaada. waayihii dambe waxaa aad u taagnaa hadalhayn ku saabsan in dowladda Mareykanka ay wado qorsho ay ku aqoonsanayso maamulka Somaliland oo ay dowladda federaalka Soomaaliya sheegtay si cadna u sheegtay in qayb ka mid ah Soomaaliya ay tahay, isla markaana aysan go'i karin. qayb ka mid ah Soomaalina loo aqoonsan yahay weli ilaa iyo afti dadweyne loo helayo, inkastoo arrimahan ay soo socdeen muddo 30 sano ah meelna aysan u dhicin. Haddaba waqti dheer kadib, 30 sano kadib iyo rajadii maamulka Somaliland kadib, dowladda Mareykanka ayaa maanta iska bari yeeshay oo arrintaasi meel ku xirtay, haadaan dheerna ka tuurtay rajadaasi. Dowladda Mareykanka waxay sheegtay in aysan marnaba raali ka ahayn in la gooyo Soomaaliya oo qaybba dhinac loo gooyo, isla markaana bannaanka ay ka taagan tahay wararka waayihii dambe soo baxayay ee ah in Somaliland ay u aqoonsanayso dowlad madax bannaan. Ha yeeshee taasi ay iyada ka ahaan dowladda Mareykanka aysan wax lug ah ku lahayn. Haddaba warkan marka uu soo baxay kadib waxaa si weyn u soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas'uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya oo sheegay in Soomaaliya ay tahay hal, maamulka Somaliland uu ka mid yahay Soomaaliya qayb ka mid ah. dowladda Mareykankana ay soo dhaweynayso hadalka ka soo baxay dowladda federaalka. Haddaba su'aasha waxay tahay, maxaa laga baran karaa warkan ka soo baxay dowladda Mareykanka? Maxaase la gudboon 3 maamul ee hadda soo socda? Waxa laga baran karo waxay tahay in Soomaaliya ay tahay hal oo aysan ahayn dowlado kala go'an oo madax bannaan, taas oo ku qeexan shuruucda caalamiga ah iyo midka gudaha ah intaba. Sidoo kale waxaa laga baran karaa in cid walba oo isku dayda in ay kala goyn ku sameyso bulshada Soomaaliyeed ay ku soo dhacayso wada cad oo bannaan, isla markaana aysan meel ku gaari karin natiijooyinka iyo haadaan iska tuurista sida dad badan ay sheegayaan. Haddaba dad badan waxay leeyihiin 3 maamul ee soo socota ee kala ah Puntland, Jubbaland iyo sidoo kale Somaliland waxaa la gudboon in ay markasta ka shaqeeyaan midnimada Soomaaliyeed kuna quus qaataan warkan ka soo baxay dowladda Mareykanka oo ah in aysan faragelin ku sameyn karin arrimaha Soomaaliya, Soomaalina ay tahay hal, iyagana ay ka tashan karaan aayahooda, isla markaana ay ilaalinayso madax bannaanida iyo midnimada Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Federaalka Soomaaliya. Haddaba adiga ka ahaan maxaa macno ah oo kaaga baxay arrintan? Sideese u aragtaa qaybta falanqaynta? uga soo dhiib aragtidaada. Sidoo kale muuqaalkan haddii uu ku soo gaarsiiyo gudbi, like garee, share garee oo la sii wadaag asxaabtaada kale. Haddii aadan ka mid ahayn inta ku xiran barteena, hadda ku soo biir si aad u hesho xogaha iyo macluumaadka halkan aan ku soo gudbino.